بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قارقة هايد كسو دوادا saxan saxo biyuuri aan healthy channel haddii aan laha awoodda la karaali noqdo waxaan rabaa maanta ama caawa ama galabta xilligay kuu tahayba allaha ku ammaansaday waxaan rabaa insha allah haddaad awoodid fursad u heshid aad videogan daawatid aan kula sheer gareeyo suqaar bariiska suqaar bariiska lagu cuni karo baastadana runtii waa lagu cuni karaa wax kasta lagu cuni karaa insha allah iyo sida hadaba aan isugu dibaridayo haddii la yiraahdo waxaan soo qaatay 1 kiilo oo ah hilibka lo'da oo halkan wadanka waxay dhahaan Soomaali oodkac baa ku qoran meelaha Turkishta iyo Carabta oo Soomaalida bartay laakiin runtii isagoo si waaweyn u jarjaran bay siiyeen saan ka yaryaraan jiray halka kiilan soo qaatay saliidii baan ku shubay marka xoogaa waan shaaxidinayaa biyahaasan ka dhamaynaya haddii la raali ka noqdo biyuhu markay ka soo yara dhammaan rabaan inuu aad daray u noqonin baan waxaan ku ridayaa baradhada haddii la raali ka noqdo insha Allah ka bacdi wuxuu noqonayaa suqaar cajiib ah laakiin markan bariis baan ugu talagalay laakiin wax kasta aad ku cuni kartaa wax ka celin kara rootida canjeelada kimista baastada wax kasta aad ku cuni kartaa khubuska wixii ma aragtay ku go'go'aya baad ku cuni kartid baan insha Allah ku cunaysaa waxaan rajaynayaa ma aragtay Ilaahay idankiisa inuu waxtar noqon doono qof kasto isdoo sameeyna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha fududeeyo in kasta aan ogahay gabdhaha Soomaaliyeed inay waxaan wada yaqaaniin oo dhexdu wada xiran tahay ma sha Allah tabarakallah wiilasheenuna ay yaqaaniin alxamdulillah Ilaahay baa mahadda iskale marka insha Allah khudaarta markaan bilaabayana iyadana sidoo kale waa idin tusayaa xabad baan idin tusayaa haddii la raali ka noqdo idinkana ka wada heli doontaan sida aan rajaynayo haddii la raali ka noqdo waatana khudaartii dhinac waxay ugu jarjaran baradhada cas baan soo qaatay diirkeeda waan ku jarjartay oo xaggan iga soo aaday waa xawaaj buurbuur basbaaska Itoobiyaanka huruud iyo cusbo dhinacan xamar baa igu qasan dhinacan waxay igu qasan bahashi la yiraahdo magaceeda bismillaah waa ii gooyay xulbad subxaanallah xulbad because waxaan ii samaystay maraq digaag xulbadaasaan maartay hal malqacad ku daray because waxaan biyaha ugu shubay way qoyan tahay way qalalan tahay dhinac waxa ugu jarjaran kamsaladii iyo muxuu ahaatay toontii dhinac waxa ugu jira celery sukumi waxa ugu jiro kale digir waxa ugu jiro kale isagana muxuu ahaatay bocor dhinac waxa ugu jarjaran laba xabo basal ah iyo in yaro basal baar ah toonta iyo kamsalada waan isku jarjaray waxba ma tuminin hadhow tamka baradhadan ku darayaa khudaartaas isku dhex jirtaan ku darayaa markasta biyaha bacaqan ka ilaalinayaa ugu dambeyn waxaan ku darayaa waxaan ku xijinayaa kamsalada iyo toonta waxaan ku xijinayaa barbarooni waxa la yahay basasha gadaal waxaan kaga soo darayaa barbarooni iyo xoogaa khudaar yar oo iyadana isku dhex jirto khudaarta diyaarka oo isku dhex jirto baan gadaal kaga soo dari doonaa insha Allah ee qaybta freezer-ka ah insha Allah waa arki doontaan hilibkii isagan aad u qalalin laakiin waa kaasoo saliidii soo muuqata waxaan ku daray baradhadan xoogaa shaaxidinaya insha Allah haddii Ilaahay because waxaan u sameynayaa biyaha uga dhameynayaa inaysan iga khudaartu iga qoyinin oo bacaq iga noqonin insha Allah baradhadaas yar baan jagagac ka siinayaa waxaa badmoodaysaa beerkii Soomaaliya markii sidii loo shiili jiray oo kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadankeena nabadgeliyo Allah inooga dhigo meel kasta raas caseer ilaa raas kambooni nabad iyo dawlad ilaa halkaas ku xidha oo diinta islaamka nagu maamusho kitaabka jaamaca nagu maamusho Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo keeno kuwa hadda joogan Allah noo xifdiyo si maartay takhliga dhulkeena inuu la soo baxno waxa dhulkeena manfacaadka ku jira ma sha Allah tabarakallah waa kana marka khudaartii dhinacaasan kaga shubay biyahay leedahay maadaama biyo badan xasay biyaheeda dhinaca kaaga soo tuujisaan isleeyahay inta kale dhinacan waa kala yara ilaalinayaa ma sha Allah khudaarta tan runtii waa wax wada bacrin lagu sameeyay oo la abuuray laakiin inaga iyada oo maxay heetaan cidina xoogin bay noo soo baxdaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo wadankeena nabad ha inooga dhigo dhinaca waa kana barbarooniga wixii hadana markay iska arkeen ay ready tahay waa kana basashii wax kasta waa ku daray markay suugadii bislaatay baan ku daray ما شاء الله وكاسا والله ما شاء الله تبارك الله وحان كوير واددن لفتو كددميا معانك بسباسك دنانك حمرتا ملقعدي مارت حلبدا هايد او ما شاء الله سطل iyaduna ka dhigaysa xulbada waa caafimaad waa udgoon
waa wax kastaba cuntada maasha Allah tabaarakallah bariis baan u sameeyay marka bariiskan hadda ka hor baan sameeyay qofkii xiiseynaya ana og in maartay gabdhaha Soomaaliyeed bariiska wada karin yaqaanin haddana qofkii xiiseynaya insha Allah YouTube-kayga fiidiyoyada hore dib ha u daawado oo arkaya bariiska saan u soo kariyay waana bariiska halka ku jira in dhamaantiin aad ka wada hesheen baan rajeynaya khayr badan aad ka dhamaan Allah idin siiyo subscribe ta share ta commentiga insha Allah biidmillahi karim like tana ku sii dara soo dhawaada insha Allah oo maartay gambaleelkana furta saad u aragtaan video kasta after share kadib assalamu alaykum wa rahmatullahi